السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada asxaabi channelkeena fursad kaab. Muuqaalkan gaaban waxaan ku sharxi doonaa sida loo sameeyo saacadan halkan ugu jeedin oo kale. Waxaan isticmaali doonaa React.js isla socod wanaagsan. Hore waxaan soo furtaa command promptiga waxaad ku qortaa npx create react app kadibna appka magaciisa raacsi clock kadib enter taawo si automatic asaga ku soo dejin doono dhammaan waxyaabaha loo baahan yahay. Markuu dhamaado kadib close iska dheh waxaadna furataa code editor-kaaga VS Code-ka waxa rabaa ahaado folder-ka ay ku qoran tahay clock fur source-ga meesha ku qoran tahay taawo kadib app.js meesha ku qoran tahay waxa iska tirtirtaa dhammaan waxyaabaha ku jira diifkaas. sidoo kalena kor loogada iska tirtir uma baahnid. waxa soo import gareysaa use state iyo use effect hook labadaas hook soo import garee kadib waxaa sameysaa state variable oo clock qabanayo functionkiisana set clock u samee. sidoo kale waxaa sameysaa use effect hook oo dhaqdhaqaaqa clock la soconaysa mar walba isbedesho. dhexdeeda waxaa ku sameysaa set interval functionkaas oo second walba isbedelayso. second walba dhexdeeda waxay sameynay new date samee markaa sameysid clock waxa u bedeshaa new date ka sameysay hadda asagoo string ah. markaas kadib waxaa imaadaa meesha oo diifka appka h1 samee clock oo javascript ah dhexgeli. intaas ayuu ku dhamaaday code-kii oo app.js ka. waxaad tagtaa app.css class-ka appka soo furo minimum height waxa ka dhigtaa 100 flex ka dhig elements ka dhamaan dhexda isku geey background-igana black ka dhig. clock class-ka soo furo display flex ka dhig center isku geey background-iga bedel. sidoo kale border 2 pixel yaal color kayaan ka dhig text shadow u yaal border radius 15 pixel ka dhig. sidoo kale box shadow samee. intaas markaa sameysid h1 ku imaa font size ku weynay. sidoo kale font weight ka bold ka dhig margin 8 pixel ku dar. intaas markaa sameysid waxaa soo furataa new terminal ama command prompt mid kor waa noqdo kadib waxaa ku qortaa npm start si oo browser ku geeyo. sida u jeedinba saacada hadda way sameysantay laakiin wax yar ayaa ka dhiman. saacada balaca iyo dhirirka wax yar ku dar. waxaad u laabataa code editor-ki class-ki clock waxaa ku dartaa width iyo height wax yar weynay. intaas bis ayaa ka dhimneed. browser-ka u laabo. intaas ayuuna ku egyahay muuqaalkeena maanta. ha ilaawin hadduu muuqaalku ku qanciyay inaad like saarto subscribe na saar haddii aad ku cusub tahay channelkeena.